oo kaleba dadka ka shaqeeya goobtan borotokoolka gaarka ah ee ay raacaan. mandiqadda ama aagga 51 wuxuu dhacaa oo uu ku yaalaa degmada Nevada ee dalka Mareykanka. sir ahaanta mandiqadan awgeed ma jirto qiyaas xadidan oo lagu tilmaami karo baaxadda dhulka ay ku fadhido, laakiin marka la eego khariidadda waxaa lagu arki karaa inay baaxaddeedu aad u weyn tahay. goobtan oo ah goob ciidan ayaa lagu tilmaamaa goobaha ugu sirta adag adduunka. heer madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama uu yidhi markaad noqotid madaxweyne waxa ugu horeeya ee ay dadku ku weydiinayaan oo waxa lagu qabto mandiqadda 51. Obama ayaa ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykan ah oo xitaa soo hadal qaada ama laga maqlo magaca aagga 51 oo madaxdii ka horeysay weligood afkooda ma soo marin jirin jiritaanka aaggan. goobtan ayaa la yeegleelay sanadkii 1954 si ay u noqoto xero lagu tababaro ciidanka cirka Mareykanka, gaar ahaanna duuliyayaasha, waxaana lagu bari jiray qaabka loo wado diyaaradaha dagaal ee cusub ee markaa la sameeyo, gaar ahaanna diyaaradihii la oran jiray UT oo ahaa diyaarado horumarsan oo uu Mareykanku u sameeyey si uu ugu basaaso midowgii Soofiyeedka xilligii uu socday dagaalkii qaboobaa ee adduunka, iyadoo markii dambena isku beddeshay xarun lagu horumariyo diyaaradaha dagaal ee ugu caansan dalkaasi sida diyaaradda F-117, waxayna hoy u tahay diyaaradaha basaas ee ugu dheereeya adduunka oo ah diyaarad uu aad u ilaaliyo Mareykanku si aan loo ogaan qaabka loo sameeyey iyo waxa ay ka kooban tahayba. sanadkii 2013 ayay ahayd markii ugu horeysay ee ay qirato wakaaladda CIA-du jiritaanka mandiqadan, iyadoo xilligaasi ku tilmaamtay inay tahay xero ciidan sidoo kalena lagu tababaro ciidamada cirka ee dalkaasi. qirashada CIA ma noqon mid meesha ka saarta sirta ku gaadaaman goobtan, taasoo ay sii kobcisay waardiyaha adag ee laga hayo aaggan, siligyo dhaadheer iyo derbiyo si xakamaysan loo dhisay oo ay weheliyaan raadaaro casri ah iyo kaamirooyin 24 saac shaqaynaya ayay la gaar tahay goobtani, iyadoo ku dhex taalla xerada ciidamada cirka ee dalkaasi Mareykanka. dadka shacabka ah waa ka mamnuuc inay ka agdhowaadaan adigoo arkaya markaad tegtid goobtaasi dignino joogto ah oo kaaga digaya inaad geshid goobtan, xarig sannad ah, ganaax $5,000 ah ama toogasho toos ahba inaad la kulmi kartid haddii aad ka soo agdhowaatid, ayaa ku qoran boorarkan digniinta ah. geliddeeda waxaa loo ogol yahay tiro kooban oo ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalkaasi, halka saraakiisha ciidanka qaybtood xitaa ay mamnuuc ka tahay inay ka soo agdhowaadaan. ilaaladan xaddaafka ah ayaa ka dhigay goobtan mid laga sameeyey sheekooyin iyo filimaan dhowr ah, halka dadka qaarna ay ku tilmaamaan inay tahay goob lagu hayo noolayaal aan aadame ahayn iyo diyaarado u eg sida saxamada oo kale oo aan la aqoon meel ay ka yimaadeen. diyaaradahan ayaa dul wareega adduunka oo lagu arkay waddamada qaybtood, gaar ahaanna dalka Mareykanka, kuwaasi oo qaybtood ay ku soo dhaceen dhulka intii ay gaaf wareegayeen. dalka Mareykankuna uu goobtaasi ugu hayo si uu baaritaanno iyo diraasado ugu sameeyo. aagga 51 ayaa ah goob hore lagu sameeyey tijaabooyin nukliyar, sidoo kalena lagu baroobeeyey ama lagu tijaabiyey diyaarado cusub. wargeyska Daily Express ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qormo uu ka diyaariyey aaggan ku sheegay in sababta ilaaladan adag lagu hayo goobtan ay tahay shaqaalaha ka shaqeeya goobtaasi oo ay dhibaato ka soo gaartay gubasho ku timid kombiyuutarradii ay ku shaqaynayeen, taasoo sababtay inay ka dhalato kiimiko saamaysay shaqaalihii ka shaqaynayay goobtaasi. dowladda Mareykankuna ay ka gaabisay ilaalinta fayadhowrka shaqaalahaasi. kiimikadan ayay sheegeen inay sababtay inuu beddelmo qaab dhismeedkii jirkooda, taasoo ku kaliftay dowladda Mareykanka inay ka ilaaliso dadkaasi inay arkaan shacabku cabsi ay ka qabaan carada shacabka. sidoo kale wargeyska Daily Mail ayaa isaguna daabacay warbixin u dhowtan oo uu ku sheegay in shaqaalihii xeradan ay saameeyeen tijaabooyinkii nukliyar ee lagu sameynayay aaggan, waxayna kiimikadii nukliyarku beddeshay qaab dhismeedka jireed ee shaqaalaha ka shaqeeya xeradan. marka ay rabaan inay u safraan waxaa khasab ah inay aadaan aeroboortka magaalada Las Vegas, halkaasi oo ay ka raacaan diyaarado aan lahayn magac iyo sumad shirkadeedba, marka laga reebo diilin cas oo ku taalla bartamaha diyaaradda. sida ka muuqata sawirkan, diyaaraddan ayaa ah diyaaradda keliya ee loo ogol yahay inay dul marto aaggan, sidoo kalena ay ku degto gegada diyaaradeed ee ku taalla gudaheeda. isku soo duuduubo, aaggan ayaa ah
mid ka mid a xeryaha ciidan ee farakutiriska ah ee lagu ilaalinta badan yahay adduunka oo dhan, heer ay noqotay xero musharaxiinta madaxweyne ee Maraykanku ay ugu ballan qaadaan codbixiyayaasha inay daha ka rogi doonaan sirta ku duugan haddii ay galaan aqalka cad ee lagu arrimiyo dalkaasi. waxaa ka mid ahaa musharaxiintaasi Hillary Clinton oo xilligii ay musharaxadda ahayd wacad ku martay inay daha ka rogi doonto. haddaba maxay tahay sirta uu Maraykanku ka baqayo in laga ogaado aagan? waa su'aasha aan ilaa hadda jawaabteeda